Asalaamu calaykum asxaabta waa idin salaamay dhammaantiina kusoo dhawaada channelka waa mashquul iyo muuqaal kale. Maanta asxaabi waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida loo sameeyo fatiirad ama sida aan u sameysto fatiirad. Horta hadda taqaanid waa taqaanaa haddaanad aqoonina ka faa'iidayso wacan. Channelka hadduu kuu cusub yahay kusoo biir waa mahadsan tahay. Hadda waxaan rabaa inaan qaso sabaayada mashiinkaas ayaan ku qasayaa. Waxaan ku shubtay 3 koob oo daqiiqa ama bur ah. daqiiqduna wataas waa daqiiq tayadeedu heer sare ay tahay aad iyo aad u fiican. Weligii ma arkin daqiiqdaas ka fiican weligii ma arkin. Waxaan ku shubtay 3 qaado oo daqiiqa ama bur ah, 3 qaado saliid ah. Burka hadda saas markuu yahay una gacanteeda ku dhigayni waa marka uu diyaar yahay. Waxaan ku daray iyo in sonkor ah inta aad rabtid ama wax yartay aadi 3 qaado oo ku darsan kartaa ama waa ka yara badsan kartaa. Teeda kale meeshan miiska korkiisa horta iska dhaqay saabuun iyo biyo. Saabuunta weelka lagu dhaqay iyo biyo ayaan ku dhaqay. Si fiican u biyo raaciyay. Markuu biyo nadiif ma aragtay meesha ka soo baxay waxaan sameeyay waan qalajiyay. Sabaayadina ayaan ku laalaabaneynaa aniga caruurta. Marka alwaax haddaan meesha soo dhigo oo kii lagu la waxay lagama ciil baxay ma fahan. Anahay chef ma aragtay weli isticmaali alwaax waa maya markaa. Aniga caruurta labadeedu chef aan nahay aniga caruurtiba chef aan noqonay markaa. Yaalkana qacmaha si fiican iskaga soo meydmeydeen ayaa waxaan sameynay burkiini ayaan ku kuusanay. Alxamdulillah kadib waan fidin doonaa gacantaan ku fidinayaa burka ma aragtay si u jilcisan yahay. Saas ayaa sabaayadu ay ku fiican tahay. Waxaa ugu muhiimsan in biyaha ay isku qiyaastid dareeraha iyo in isku qiyaastid daqiiqda ama burka. Markaa hadda waxaan rabaa inaan dubo markaan dubo sabaayadu markay jilicsan tahay marka way soo kacaysaa markaa dabka saarto buf way soo leedahay. Way kala baxaysaa markaas hadda waxaan sameeyay sabaayadan dubi. Sabaayada markaan dubo gooniya sabaayada oo dhigan kadib waxaa dabka ii saaran hilib shiidan. Hilibka shiidan waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah iyo wax yar oo xawaasha. Intaas ayaan ku shiilayaa. Saliid ma ku darayo. Intaas markaan si fiican iskugu bislaayo. Gees ayaan dhigani. Sidoo kale waxaan sameysanayaa salad nooc rabtid ayaa u sameysan kartaa. Ani Romanian saladkan jeclay laakiin hadda waxa ii yaalay saladka ma aragtay warwareegsan ayaa ii yaalay. Kaas ayaan jarjartay. Waxa aad rabtid waa ku darsan kartaa. Kadib waxaad sameynaysaa ukuntana wax yar oo saliid iyo qaji iyo cusbo ayaan ku shiili doonaa. Markaa sabaayadaas markaan sameeyo waxaan sameeyay sabaayada jarjari. Waxaad ku dari hilibkii, waxaad ku dari ukuntii, waxaad ku dari saladkii, ketchup iyo mayonnaise. Haddii rabtid waxaad ku darsan kartaa moos oo korka kaga googin kartaa. Waad isku rogrogi kartaa iyo koob shaaha oo ma aragtay madow ayaan ku jeclahay shaah madow. Ayaa ku cabisa waxaan ku wada casho fuul ah ama qado fuul ah ayay ku noqonaysaa. Subscribe saar channelka gambaleelkana furo haddaanad subscribe no ahayn aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa. Sidaas iyo waxaan kaga tagay nabadgelyo daawasho wanaagsan.